tahay wiil ama gabar oo in uu iska yareeyo raba difinta caloosha uga taala mise sida kale loo yaqaano belly fatka ama difinta caloosha ama inuu generally iska jaro raba weightka. Haddaba videogani dhammayso waad arki doontaa qaabka aad ula dagaalamto sirta aad iskaga jari doontid weightka caloosha ama weightka jirka, kiilada ama miisaanka aad iskaga waxaan kuu sheegi doonaa ama waxaad barani doontaa 3 qaab ama 3 nooc aad iskaga kuna aad ku dadaali doontid kuna basics ka noqonayo ama aas-aaska noqonayo kuna noqonayo wixii aad iska ilaalin lahayd. Asxaabay soo dhawaada meel walba aad joogtiin. Channelka daawanaysiin waa channelkii Dr. Saddam Hussein, anigana waa Dr. Saddam Hussein oo physician associate ah. Meel walba aad joogtiin kusoo dhawaada, fadlan ha iloobina channelka subscribe, like and share-ka. Haddana aan guda galno barnaamijkii. Marka sidaan hordhaca aan kugu soo sheegay, maanta waxaan rabaa in aan ka hadlo waxa loo yaqaano sida aad iskaga jar lahayd miisaanka oo naturally ah aad iskaga jar lahayd. Qaybta koowaad waxaan uga hadlayaa basicska. Basicska waxaa waaye aas-aaska adi ahaan lagaa rabo inaad samaysid. Basicskani waxaa ka mid ah kow waa in aad shayga koowaad waa inaad sokor oo idil ama wax sugar oo idil aad iska jartid, aad cunadaada oo idil aad ka bixisid. Tani waxay kaa saacideynaysaa haddii uu jirkaaga mar walba wax sokor aad qaadanaysid waxba kuguma soo siyaadinayso. Intaan waxay kugu sameynaysaa maaragtay in ay jirkaaga mar walba waxa la yiraahdo hormoonada la yiraahdo insulinka uu kugu bato. Insulinka mar walba aad qaadatid wax sokor leh jirkaaga wuxuu soo daynayaa insulinka. Insulinkani marka wuxuu noqonayaa in aad maaragtay mar walba oo sida uu aad ahaatid. Midda labaad aad kula dagaaltami kartid miisaanka ama jirkaaga aad miisaanka aad ka jaraysid waxaa waaye cunadii aad qaadanaysay aad soo yaraysid. Tani waxay u dhigantaa waa in aad maalintii haddaad 4 cuno aad qaadanaysay ama 3 cuno aad qaadanaysay waa in aad 2 ama 3 aad kusoo koobtid intaa ka badan aad qaadanin. Tani waxay kaa yareynaysaa sidoo kale insulinkii badanaa ee jirkii kaa yareynaysaa. Midda kale waxaa waaye waa in aad wax la yiraahdo snackska ama cuntada fudud oo idil aad ilaalisid. Cunadaas oo kaliya aad ku joogtid maalintii haddaad 2 waqti aad wax cuni kartid kaliya aad ku joogtid. Midda afraad aad kula dadaali kartid waxaa waaye waa in aad qaadatid cunada qudaarta u badan. Qudaarta waa in aad badsatid. Qudaarta waxay kaa saacideynaysaa waxaa waaye jirkaaga oo idil ayay dhisaysaa because waxaad waynaysid waxaa waaye waxaad iska jaraysid waxaa waaye fatska ama difintada ayaad iska jari haysaa. Fatskan vegetableskan ama qudaartani waxay ku replace gareynaysaa ama ay ku bedelaysaa meeshii ay fatska ay ka baxayaan ama difinti kaaga ay hayso bedelkeeda ayaad u isticmaali kartaa. Midda shanaad aad oo basicska ah waxaa waaye waa in aad proteinka aad badsatid. Proteinka mar walba wuxuu u fiican yahay maaragtay 7 ounces lahaa 7 ounces oo protein ah maalintii inaad qaadatid waaye. Wuu fiican yahay proteinka waxaa waaye wax oo natural jirkaaga dhisayo waaye wax difin ah kuguma tarayaan. Marka halkaa waxaan ugu gudbayaa basicski ama aas-aaskii adiga lagaa rabay in aad samaysid oo maalin walba ku ahaato routinkaaga caadiga ah, dhaqankaaga caadiga ah maalin walba inay ku ahaato sidii uu weightka kugu darsamin ama kiiladii ay kugu darsamin. Halkaa waxaan ugu soo tagaynaa ama aan ugu soo baxay waxa loo yaqaano aas-aaska ama basicska oo adiga lagaa rabo mar walba in aad samaysid. Haddana waxaan u guda galaynaa wax loo yaqaano addingka ama wax speedka ku dari kara ama waxa extraga ah aad sameyn kartid oo maaragtay miisaanka ka sii ridayo. Waxaa ka mid ah wax loo yaqaano medium chain triglyceride wax loo yaqaano waxa waaye difin oo maaragtay oo wanaagsan oo maaragtay oo sida difintani waxaa ka mid ah saliid qumbada oo cuntada midda lagu darsada ah, midda timaha ma ahan, midda qumbada oo cuntada lagu darsada ah, coconut oil-ka loo yaqaano. Ayadana way fiican tahay in aad way ka sii ridaysaa dhaqso miisaankii badanaa ayay ka sii ridaysaa. Mid labaad waxaa waaye waa in aad potassium-ka aad qaadatid. Potassium-ka
mineralkan ama macdintan potassiumka loo yaqaano waxaa laga helaa mooska, waxyaala cunooyin maaragtay fruits badan laga helo baa jirto sida mooska camal ah. Potassiumkan wuxuu kuu bedelayaa meeshii oo maaragtay insulinka mar walba haddii uu jirkaaga uu kor u jiro, haddii aad cunadii sugarka ku badaneed aad iska daysid ama sokortii ku badaneed, waxaa dhici karta inaad insulin resistance aad gashid. Insulin resistance-ka potassiumka wuxuu kaa saacideynayaa in uu maaragtay insulin resistance-ki ay dhicin oo jirkaaga insulinka uu normal ahaado oo meeshii caadiga uu ahaado. Midda kale waxaa waaye midda saddexaad oo speedka ku dari karta ama maaragtay ku dari karta shaqada weightka aad iska ridaysid, waxaa waaye waa in aad apple cider vinegar-ka wax la dhahaa aad isticmaashid. waxaa waaye wax yara juice ahaan ah oo apple ahaan ah laakiin oo maaragtay citric acid lagu dari waayo. Citric-kan wuxuu u fiican yahay jirkii weight loss-kana wuu u fiican yahay, dadka sokorta qabaana wuu u fiican yahay, weight loss-kana sidaan horaan aan usoo sheegay miisaanka jarmitaankiisana wuu u fiican yahay. Dadka normalka ahna way isticmaali karaan, maaragtay jirkii ayaa u baahan. Macdinta kale oo weightka aad iskaga ridi kartid waxaa waaye macdinta loo yaqaano chromiumka asagana sidoo kale insulin resistance-ka buu kaa celinayaa, weightkii badanaay ayuu kaa ridayaa ama kiiladii badaneed ama miisaankii badanaay buu kaa ridayaa. Sidoo kale asagana wuxuu u fiican yahay dadka sokorta qabana way u fiican yahay oo mar walbo inay isticmaalaan sida apple cider vinegar. Waxyaalaha kale aad maaragtay speedka ku dari karaa ama extra-ga ah aad isticmaali kartid aad weightka iskaga jiri kartid waxaa waaye vitaminada loo yaqaano vitamin B complex wax loo yaqaano. Vitamin B complex-ka waxay kaa saacideynayaan ayagana badi in ay maaragtay cunooyinka jirkaaga ay weightka ay ka ridaan. Cunooyin badan baa laga hela baa jirta vitamin B-gan sidaan videoga horaan aan ugu soo sheegay vitamin B12 deficiency aan ugu soo hadlay. Sidoo kale vitamin B12-kan vitamin B1-ka ayaa ugu wanaagsan. Vitamin B complex-kan way fiican yihiin mar walba ayagana weightka badan bay kaa jarayaan. Mid kale waxaa waaye waa in aad hurdo badan aad heshid. Intaan hurdada badan aan galin waxaa waaye waa in aad exercise-ka loo yaqaano high intensity exercise-ka inaad hagaajisid. High intensity exercise-ka macnihiisu waa maxay marka? Waa sida aerobics-ka camal oo maaragtay orodka ah. In exercise-yaasha oo orodka wadna garaacaga zaa'idka ah waa in aad hagaajisid. Kuwani waxay kaa saacideynayaan wadna garaacagaaga bay ku darayaan. Wadna garaacagaaga hadduu ku darsamo jirkaaga waxyaalo badan ayaa ka go-aya, fats badan baa kaa go-aya. Marka high intensity exercise-kan oo direct ah ma hagaajinaysid. Exercise oo waxaad hagaajinaysaa high intensity exercise oo maaragtay oo zaa'id ah aad hagaajinaysaa, then waad nasanaysaa, then haddana waad hagaajinaysaa. Marka midani waxaa la socoto marka waa in aad more sleep aad hagaajisid. More sleep-ka maxaa waaye hurdo badan waa in aad heshid maadaama uu jirkaaga nasasho u baahan yahay. More sleep waxaa soo raacaya recovery period-ka wax loo yaqaano. Recovery period-ka sidiisna waxaa waaye waa in aad nasashada aad badisid. Hurdada iyo nasashada way kala yihiin. Hurdada waa in aad laazim waaye, waa in aad seexatid oo waqti badan aad seexatid. Midda kalena waxaa waaye jirkaaga nasasho badan in uu helo. Kuwani waxaa waaye marka wax adding up-ka ah ama extra-ga ah aad sameyni kartid oo jirkaaga oo maaragtay miisaankii uu dhaqso u kaaga jarmaayo. Marka aan u guda galno wixii aad iska ilaalin lahayd ama wixii aad iska avoid gareyn lahayd oo maaragtay what you have to avoid. Haddana aan u guda galno wixii aad iska ilaalin lahayd sida aad weightka aad iska lahayd. waxaa ka mid ah kow waa in aad hurdo la'aanta aad iska ilaalisid. Waa in uu jirkaaga helo enough rest, enough hurdo uu helo. Waxaa sida kale loo yaqaano insomnia-ga waa inaad iska ilaalisid. Insomnia-ga waxaa waaye hurdo la'aanta waa inaad iska ilaalisid. Shayga labaad waxaa waaye in aad iska ilaalisid oo rabo waqtiga aad weightka aad iska jaraysid ama miisaanka aad iska jaraysid waxaa waaye wax loo yaqaano calool fadhiga. Calool fadhiga waxaa waaye macnihiisa calooshaada aan soconin, saxaro aad helaynin. kuwani haddaad iska ilaalisid waxaa waaye ayadana weightka dhaqso buu kaa jarmayaa. Shayga saddexaad waxaa waaye waa inaad iska ilaalisid haddii aad gabar aad tahay caadadaada hadday saxaneen ayadana waxay kugu daraysaa insulin resistance-ka bay kugu daraysaa oo cycle-kaaga menstrual cycle-kaaga hadduu saxaneen oo caadadaada waqti walba bil walba aad helaynin estrogen-kaaga baa ku darsamaya, progesterone-ki baa ku darsamaya, then insulin resistance baa dhacayso sidaa. Marka waa in aad ayadana caadadii aad iska saxdid.
sheyga afraad in aad iska ilaalisid la rabo waxaa waaye stresska jirka wuxuu soo daayaa mar walba aad stress uu jirkaaga uu ku jiro, jirkaaga wuxuu soo daayaa waxa loo yaqaano stress hormoneska waxaa kamid ah sida cortisolkana waxay ku darayaan insulinka hadduu ku darsamo jirkaaga waxaa ku darsamaya in aad maaragtay weigtkaaga uu ku darsamo, finan badan ay kasoo baxaan, waxyaalo badan baa jirkaaga kasoo baxayo oo maaragtay ama ku darsamaya. sheyga shanaad ama sheyga lixaad inaad iska ilaalisid la rabo waxaa waaye waxa la yiraahdo sodium glutamate monosodium glutamate waxa la yiraahdo. waxaana waxaa laga helaa cunooyin qaarkood, cunooyinka aad soo gadanaysid ayagana iska fiiri oo maaragtay mar walba iska taxadir. sheyga kale inaad iska ilaalisid la rabo oo weightka markaad iska jaraysid waxaa waaye cunooyinka maqaaxiyooyinka waxaa waaye ayagana dhib badan bay qabaan. ma garani kartid wixii lagu daraayo, ma garani kartid in sokor badan lagu daraayo cunada aad qaadanaysid, ma garani kartid in cusbo badan lagu daraayo, ma garani kartid in difin badan lagu daraayo ama fats badan lagu daraayo. marka aad weightka aad iska ilaalinaysid, aad weightka iska jaraysid, waxaa fiican mar walba in aad maaragtay cunooyinkan ayagana aad cunooyinka maqaaxidaha ayagana aad iska ilaalisid. sheyga lixaad ama sheyga lixaad in aad iska ilaalisid la rabo waxaa waaye overtrainingka. horaan saa usoo sheegnay waxa aad maaragtay extraga aad sameyni kartid waxaa waaye high intensity trainingka, laakiin high intensity trainingka asagana overtraining ha ka dhigin oo mar walba ha hagaajinin. isbuuciga 2 jeer 3 jeer oo kaliya inaad hagaajiso ayaa laga rabaa. kani wuxuu kaa saacideynayaa maaragtay inuu jirkaaga uu galin muscle-kii idil uu kaa wada dhumin oo jirkaaga aad maaragtay qaliir caadi aad noqotid ayuu kaa ilaalinaya. midda kale aad iska ilaalinaysid waxaa waaye constipationka sidiisba waxaa waaye in aad iska ilaalisid danbaa kugu jirto constipationka sidiisba wuxuu ku keenaa dad waxaad arkaysaa maaragtay halkii isbuuc hal maraan suuliga aadi aan kuleh maaragtay taasna ma wanaagsana. mar walba constipationkaaga la dagaaltamo oo maaragtay constipationka iyo bloatingka calool fadhiga iyo constipationka waa isku mid, laakiin waa inaad iska ilaalisid ayagana. asxaabey waxaan soo gaarnay gabagabadii iyo gunaanadkii barnaamijka. meel walbaad joogtiin fadlan ha ka iloobina channelka subscribe, like and share-ka haddii aad videogan aad ka hesheen. sidoo kale subscribe iyo like channelka ha ka iloobina videoga iyo channelkaba. waxaan idin rajeynayaa sidaas iyo nabadgelyo.